kolley waxyaabaha dee naxdinta leh adduunku uu iska badan yahay waxa kaa naxiyaa oo waxa ugu naxdin badan uun dee waxay naga soo gaadhaya ummadeenna burburaysa waa su-aalihii dhalinyarada malaa taasi dee kol haddii heerkaa lasoo gaadho shaktir jacayl ma ku dhacay weli dee waxaan filayaa qofka marka uu hawlahaas oo kale u dhaqaaqayo laydha daartaa la yidhaahdaa jacayl. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت بدن وسود هذا ميل كستو دادونك جوكتان الله ينشرفه الله ينكراميه والله يو وبرامجكي قيمها بدنا وبرامجكي وناق بدنا عادين بدن سوغيسين هون آلا بكسو قبنو علماء الصوماليد هدبا شيقي إنو سورة قاله وعن وريسي كقادانينو ما أنت واحد شرف فرحات إكرام إنو inaan wareysanayno oo maanta si live aan u wareysanayno sheekheena weyn mid ka mid culimada Soomaaliyeed kuwa ugu waaweyn waa Sheekh Maxamed Cumar Dirir in badan bulshada Soomaaliyeed wada garanaysa adduunka dacaladiisana waa laga dhageystaa tafsiirkiisa ama qeyrka uu baahiyo guud ahaanba waa laga dhageystaa sheekhana marka hore soo dhawow waad mahadsan tahay الله كبركيو أستاذي وحن جعلان لهين إن سؤالات كويدينو سؤالها سفيركا وبرامج خاصة علماء انت بدن لغو ورئيستو وعن علماء شكو يكو أغانو شكذا شيقنا نبحيني مركا شيقنا وحن جعل لها إن أغانو تاريخ نولاد كاغي بلشو سومالي انت بدن ويكو دقيستا ويكو هذا الهيسا مقع قوي يقانان لكن شيقا وحي جعلان لهاين إني تاريخ ديسا iyo soo joogiisa waayo joogiisa inay bartaan jeclaa lahay soo dhow ustaadi waad mahadsantahay waa dhaw jazakallahu khayran alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sallallahu wa sallama wa baaraka calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasallam ikhwaani fillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rag iyo dumarba dadka daawadayaasha ama dhegeystayaasha waxaan idin leeyahay ilaahay hayna wada barakeeyo adduunyada iyo aakhirana allah inagu asturo sida wanaagsan saacidadu ay ku jirtaan allah ina waafajiyo intaa kadib sheekh weyn ma ihi sidaa uu walaalkay sheega waxaan ay arday taas waa mid weeye oo ka cudur daaranaya talabaada jirta qofka bani aadamka ahi way ku yara adag tahay marka la yidhaahdo iska waran oo waxa fiican haddii cidi waramaysa inay cid kale ka waranto balse haddii dee aan soo yaro koobo malaha waa hab loo dhaqmo casrigan aynu joogne magacaygu sidaa maqasheen waa maxamed cumar dirir hargeysaan ku noolahay waxaan ka mid ahay uun wadaadada soomaalida ee dadka waxu yaro sheega waxaynu sheegaynaa sawaab ilahay ha ka dhigo waxa aan ku dhashay kililka shanaada Ethiopia 1963 waxaa cilmiga sharciga ah ama culumtii qur-aankaba isoo baray intii hore aabahay allah yarxamu sheekh cumar dirir oo ka mid ahaa culimadii soomaalida ee tafsiirka iyo fiqiga akhriyi jiray iyo naxwada muddada kolleyba aan wax baranayay dee way isku jirtaayo qofku marka horena waxbuu baranayaa marka dambe wax barayana isaga laftiisa wax baranaya marka ilaa 10 sano ayay ahayd intii horeen ku howlanaa inaan maaragtay cilmiga sharciga ah masaajidada ka qaato marka la iska dhaafo madaariska iyo dugsiyada in badan oo ka midana waalidkan xokayn u ahaa ama aan ka ag dhowaa markii dambe aan wax bilaabayna dee dhinacna barashaan kaga jiray oo anigii baa wax kororsanayay dhinacna dadkan wixii ilaahay ii sahlo u kordhinayay cilmigayguna xalqadaha masaajidku u badnaa iyo culimada soomaalida iyo dee carabtaba le inaan wax ka qaato markii dambena qaybihii dambe aniga waxaan isku dayay anigoo dhinac wax ka baranaya inaan gelina wax barto gelina wixii horeen soo akhristay aan dadka usii faa'iideeyo oo kolley alcilmu yazku bilinfaaq baa la idhaha cilmigu waxa uu ku kordhaa bixinta markaa sida berigii hore caadiga ahayd waxay ahayd intoonu culumta soo akhrisanay inaanu haddana da-yarta naga yaryar usii akhrino
si uu cilmigu wuxuu ku sugnaadaa la alcilmu yahbutu bitadriisi wata'liif in la alifo iyo in la akhriyo ayuu ku sugnaa. marka taa akhrinta ayaan isticmaali jiray oo anigoo dadkii culimadii kasoo akhristay baan haddana dadka usii akhri jiray. marka labadu way wada socdeen baan odhan karaa, laakiin muddadaa hore aan u sheegay ayaa ay u badnayd intii aan maaragtay ku dhex jiray waxbarashada. waayahay ustaadii, qeybtii hore haddaan ku noqdo, sheekh dirir waa naqaanaa, bulshada soomaaliyed waxay jeclaan lahay inay ka bartaan caruurtiisa iyo qoysaskiisa waa imisa? waa xaasasku waa 2, caruurtu waa 17. aniga iga soo jeeda 12na awow baanu ahay. dad sodomeeye meelahaasa baan haatan ka mas-uulahay oo nin yar ballaadhan baa noqday. allah inagu asturee. waaya jasaaka allahu khayran, allah ku barakeeyo ustaadii, waa kaaga mahad celinaynaa. markaad cilmiga baranaysay ama aada ku jirtay waxbarashada ama aada ku jirta dadka inaad waxbartid, waxaa kusoo maraya waxyaaba badan oo la yaab leh. markaad adduunka maraysa sidoo kaleeto ama noloshaada idal waxyaaba farxad leh kusoo maray. marka maxaa kugu farxad badnaa, maxaase kugu yaab badnaa? soo dhow ustaad. ta hore wanaagga aan horreysiiya ee dee qofku waxa uu ku farxayaa marka u horeysaba nicmadu ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala ee faraha badan, kala duwan ee mid diineed iyo mid dunyaba leh iyo mid caafimaadba leh, iyo inagoo waddankeenii joogna, iyo cilmiga aynu ku mashquulsan nahay ama ilaahay inuu ina waafajiyey dhaxalkii nebiyada inaynu dadka wax uga sheegno. oo inagu had iyo jeer gaaladu marka la ydhaa maxaa kugu farxad badnaa ama kugu naxdin badnaa, wax yar oo hal mara ayuunbay sheegaan. laakiin waxaa inoogu farxad badan inaynu dhaxalkii nebiyada ku howlanahay aynu ku dhex jirno. taasa anigu aanu arkayaa farxadda weyn. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inaga aqbalo. kolley waxyaabaha dee naxdinta leh adduunku wuu iska badan yahay, waxaa kaa naxiyaa oo waxa ugu naxdin badan uun dee waxa inaga soo gaadhaya ummadeenna burburaysa, iyada oo sharaf leh haddana kaca kufaysa, ama dagaaladii mar walba soo noqnoqonaye dadka iyo dalku ay ku burburayeen, qaxoonti lahaa, dhimasho lahaa, oo anigu aanan ahayn runtii dadkii ka maqnaaye waxaan ahaa dadkii waddanka joogay, oo dabedaha waxaan u tegi jiray uun inaan dacwad iyo muxaadaraad iyo shirar tago. laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii dalka dhex taagnaa intii wax ka dhacayeenba, dadka dhibaataysan arkayay, dagaalada sokeeye arkayay, musaalaxaadka iyo heshiisyada ku jiray. taasaa dee wax badan oo kaa naxiya ay runtii ku badnaayeen. laakiin waxaa shaksiga ahay wax macno buran ma sii lahae dhibaatooyinkaa caamka ah ee dalkeenna iyo dadkeenna haystay ee aan ag joogeen ka ag dhawaaye aanan ka maqnayn ayaa igu naxdin badnaa. waa mahadsantaha sheekhana, allah ku barakeeyo. maadaama aada reero badan leedahay, caruur badanna aada leedahay, waxaa la isweydiin karaa sheekh maxamed cumar dirir muxuu jacaylka ka aaminsan yahay? soo dhawow. waa su-aalihii dhalinyarada malaa taasi. de kol haddii heerkaa lasoo gaadho waxaynu ku jawaabi lahay inuun jawaabtu nebigu bixiyey sala allahu calayhi wasalam. wuxuu ihi xubiba ilaya min dunyaakum, adduunyadiina waxaa aan ka jecelahay dumarka oo uga jeeda xaasaskiisa iyo udgoonka buuri. marka dee jacaylkeennu waa ka ehelkeenna ee ooryaheena iyo ubadkeenna. marka laga jacaylka dee dabiiciga ama maxaba shafqiya washawqiya, maxabada ehelka iyo aqaaribta loo hayo, kuwaasumaynu jecel lahay. maxabada kale kasii weynina waxa weeye ta aynu u qabno ilaahay, rasuulka iyo diinta, taasaana inoo horeysa. tan kale dabiiciga ah ee caadigaana dee ehelkeenna inoo xalaasha ah iyo ubadkeenna inoo haynaa insha allah. waayo ustaadii, allah ku barakeeyo. maadaama aada tiri jacaylka waa wax jira oo aada aqoonsatay inuu jiro, gurigii nabi maxamed salawaatu wasalaamu caleyh wuxuu ku taagnaana ay jacayl ahayd. sheekh dirir, jacayl ma ku dhacay weli? de waxaan filayaa qofka marka uu howlahaas oo kale u dhaqaaqayo laydha daartaa la yidhaahdaa jacayl. abateedka ninku inuu xaas guursado
abateedka u gala ama rabitaanka ayaa jacaylka la ydhaa. iyo ruuxa dumarkii markay nin guursanayso dee iska qaadan mayso une, ila qofkuba had iyo jeer markuu dhar iibsanayo wuu jeclaadaa, markuu qof bani aadama la xidhiidhayana wuu jeclaanaya. waxa labada qof isu keenaana waa inay is afkartaan, raqbad iyo abateed iyo jacaylna uu dhex maro. taasaa dee dabcan isu keenaysa. fankixuu maa daaba lakum buu ilahay yidhi, fankixuu maa daaba lakum min annisaa. waxay culimadu ku macneeyaan waxaa guursataan maa daaba lakum min annisaa, dumarka wixii idiin xalaalana waa lagu fasiraa, aada jeclaataanna waa lagu fasiraaba. marka dabcan waa wax jira wey. waa mahadsantahay ustaadi, jasaaka allahu khayran. allah ku barakeeyo, cimri dheer iyo caafimaad allah ku siiyey. waan kaga mahad celinaynaa waqtiga qaali oona siisay, anaka og inaad mashquulsan tahay, haddana a waqtiga qaali ay noo soo hurtay. walaalaha soomaaliyeed guud ahaan waxaan ka codsanaynaa in culamada soomaaliyeed guud ahaanba loo duceeyo, inta nool in ilaahay cimri dheer iyo caafimaad uu siiyo, intii dhimatayna in ilaahay u naxariisto, janatulfirdowsna ilaahay uu geeyo. dhanka kalena walaalayaal, marka adiga aada daawatid kilibkan ood ogaatid taariikhda culimada iyo heerka ay jacaylka ka joogaan, waxaan kaa codsanaynaa in la sii wadaagtid walaalaha kale si ayakana uga faa-iideystaan sida adig u baratay oo uga faa-iideysatay oo ugu qanacday inay walaalaha kalena ugu soo duceeyaan, ugu qancaan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. adigana usii gudbi walaalaha kale intaan dib dambe isugu imaan doono. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.